الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتنا maanta الله سبحانه وتعالى haduu idmo oo bisha Jamaada Thani ay lixtahay sanadka kuna 400 oo ku beegan taariikhda miilaadiga ah bishii saddexaad 12 taqriiban 2016 waa subax talaada ah waxaan isku day doonaa insha Allah taala shay dhibaato weyn umada muslimka ah ku haya meel walba ay joogaan adduunka shareecaduna aad iyo aad uga warantay oo ay meel adag saartay inaynu baldadka muuminiinta ah ee muslimiinta xusuusino shaygaasi khatarta iyo dhibaalaha uu leeyahay inagoo isku dayayna bal inaynu hadalka aynu ka oranayno Allah subhanahu wa ta'ala inagoo kaashanayna inaynu bal qaybino hadii Allah idmo shayga aynu ka hadlayno waa khamrigu waa shay khatar ah waxaad ogtihiin walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala inuu diintan islaamka noogu nicmeeyay nimco aad u weyn iyo runtii abaal iyo minno aad u weyn Ilaahay inaga siiyay subhanahu wa ta'ala fi surati al-hujurat ba Ilaahay wuxuu leeyahay wa'lamu anna fiikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. آية التضباط هي آية اللحاد في التضباط السديدات في سورة الحجرات. الله عليه سبحانه وتعالى وقاد ضديه waxa idin dhex jooga rasuulkii Ilaahay dhexdiina inuu ahaaday rasuulkii Alle sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadii uu rasuulku idinka yeelo idinku ateeco wax badan oo arinka kamid ah waa dhibaatoon lahaydeen mushaqo dhibaata dhici lahayd laakiin Alle subhanahu wa ta'ala wuxuu idin jeclaysiiyay iimaanka jeclaysiinu iimaanka idin jeclaysiiyay kuma dayne hadana Alle subhanahu wa ta'ala wazayyanahu fi qulubikum qulubtiina iyo laabihiina ayuu iimaankii ku qurxiyay iimaankii Alle qulubtiini iyo laabtiinu ku xardhayo ku qurxiyay qofba iimaanku meel buu u joogaa marka qofka taacada iyo cibaadada iyo khayrka ku xidhan ee ku taxalluqana iimaankiisu hadiya gooraale waa kordhaya waa ziyaadaya oo asalkiisi taagnaan maayo qofka macaasi iyo xumaan yimaadana iimaankiisu was dhimaya oo nuqsaamaya al-iimaanu yaziidu bi-taa'a wa yanqusu bil-ma'siyah wa qawaa'id sharciga ee ahlus-sunnah wal-jamaa'a ay tilmaamaan wa karaha ilaykum al-kufra Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu Alle idin nicbaysiiyay oo idin la nacay gaalnimada iyo faasiqnimada oo taacada Ilaahay in laga baxa iyo caasinimada Ilaahay lagu caasiyo dadka sifaadka caynkaas lihi waa kuwa hagaagsanee toosan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa Alle ka waramay arintaasi waxa uu sameeyay inay tahay fadli isaga xaqii ka ahaaday iyo nicmo iimaankan laysa siinayo ee qalbiga qofka bani aadamka ah lagu qurxinayo maaha qofku wuxuu si sahal meel u heli karo wadeeq Ilaahay bixiyo walladhi khalaqakum faminkum kaafir wa minkum mu'min Ilaahay waa iimaanka bixiyo subhanahu wa ta'ala marka waa fadli iyo nicmo Alle xaqiiqaate Allana waa Alle ogaal badan oo xikmad badan hadaba walaaliya diinta tan Ilaahay waa u ilaaliyay
islaamiyada ah oo uu xafiday dadka ahlul iimaanka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u xafiday diintan alle subxaanahu wa tacaala dadka ahlul iimaanka ah waa u xafiday oo waa u ilaaliyey cuquushoodii buu ilaaliyey caqligoodii wixii wax yeeli karayuu ka dhowray oo akhlaaqdoodii buu ilaaliyo waxa wax u dhimi karaya akhlaaqdooda wuu ka ilaaliyey alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u ilaaliyey xoolahoodii amwaashoodii wixii ay ku xumaanayaan ama waxyeelaynayuu ka dhowray sharaftoodii buu alle u ilaaliyey dadka mu'miniinta ah subxaanahu wa tacaala markaasaa noloshoodii ay hagaagsanaatay oo wanaagsanaatay nicmo ka weyn miyaad garanaysaan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa uu wax u qorsheeyey iyo abaal bani aadamka loo galo oo ka wacan miyaad garanaysaan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh awalan wa aakhiran isagaa mahad leh daahiran wa baatinan alle subxaanahu wa tacaala diinka islaamka marka haddii walaalayaal alle subxaanahu wa tacaala dadkii mu'miniinta uu sidaa ugu ilaaliyey diintii oo caqligoodii u ilaaliyey saynu tilmaannay oo sharaftoodii u ilaaliyey oo akhlaaqdoodii u ilaaliyey oo habdhaqankoodii iyaga dhexdooda iyo qof walba qaabku u noolaan lahaa loo ilaaliyey waxaa jira arrimo ay mudan tahay in si wacan loo ogaado arrimahaasi waa arrimo ama waa albaabo shar ah waa meelo xumaantu ay ka soo geli karto qofka bani aadamka ah haddii uu albaabadaa garaaco ama haddaynu si kale u nidhaahno haddii uu albaabadaa qofku ka wardoono uu xaggooda galo waxaa dhici karta inuu caqligiisii fasahaado oo diintiisii ay lunto oo akhlaaqdiisii ay dunto baaba'do oo uu ku dhaco waxyaabo badan oo aad u liita iyo umuuro aad u xunxun oo khatara inuu qofkaasi la yimaado waxaa jirta aafo khatar ah iyo balaayo aad u weyn oo qofku haddii lagu ibtileeyo oo lagu imtixaamo ay dhici karayso aafaadka intaa wanaagsan ee diintu inoo dhowrtay wax yeeli karaya oo dhan inay gundhig u noqoto wax alla wixii xumaanahna gundhig u ah iyo noocyadeedaba arrintaasi waa khamriga khamrigu wax kastoo caqliga daboola oo maxaanku idhaahdaa maanka dooriyaa la yidhaahdaa wuxuu doona ha noqdo waxaasi khamriga sidoo kale iyo dee wixii la mida xashiishada iyo afyuumka iyo waxaasoo dhan way soo geli karaan sidaa awgeed waxaanu jecel lahay bal inaynu ka hadallo wataciyaha udunun waaciya cidda wax ku qaadanaysa waa ciddii ilaahay khayr la doonay dhegtu u daloosho oo aanay arrintu ahayn qaaluu sawaaun calayna awacadta am lam takun min alwaacidiin waa isugu kaya mid haddaadna wacdido iyo haddaadanna wacdinba meesha ay soomaalidu ka tidhaahdo dhagax tuujin iyo taabasho way isaga mid sidaa awgeed waxaynu doonaynaa maqaamkan inaynu kaga hadallo allah subxaanahu wa tacaala iyo sida bal uga warramay khamriga iyo khatartiisa isagoo alle ka digaya dembiga weyn iyo khatarta ah ayuu wuxuu la xidhiidhiyey khamriga alle jalla wacalaa oo waxyaabihii ugu xumaaya waaweynaa ee macaasidana ka mid ah asnaamtii gaaladu ay caabudayeen buu ilaahay la xidhiidhiyey shayga xumaantiisa wuxuu alle ka warramay inuu khamrigu yahay cabidiisu camal shaydaan inuu yahay wuxuu alle ka warramay inuu qofka iska hortaago ilaahay xuskiisa qaybihiisa kala duwan wuxuu alle ka warramay subxaanahu wa tacaala inuu qofka iska hortaago salaada inuu si wacan ula yimaado salaaddii qofku si wacan u guto iyo acmaasha iimaanka intooda kaleba inuu dhaawaco waa la arkaa allah subxaanahu wa tacaala fii suurati almaa'ida wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalazlaamu rijsun min camali الshayطaan faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun inama yuriidu الshayطaanu أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انتهينا يا ربنا
allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dad iyo mu'miniinta ah marka dadka mu'miniinta loo yeedho ee loo dhawaaqo salafkii waxay odhan jireen qofku ibn mascuud oo kale qofka dhegtaa qofku taagi jiray mu'minka ama waxbaa la amrayaa ama waxbaa laga celinayaa dadkii mu'miniinta ahaayow afar qodob baa ilaahay ka digay khamriga iyo khamaarka la ciyaaro ee lacagta lagu kala helayo iyo asnaamta waxa la caabudo ilaahay sokadii ah iyo aslaamta waxyaabahan la qori tuurto ee lagu faashado oo ay gaaladu yaqaaneen xilliga ay safar doonayaan inay aadaan 3 qori ama 3 looxo yaryar ayaa qofka sanamka ag jooga uu hayn jiray mid waxa ku qornaa amarani rabbi midna waxa ku qornaa nahaani rabbi iyo mid kale saddexda markuu qofku safar doonayo ayuu yimaadaa ka sanamka jooga markaasaa warna bal hada inuu safarkaasi khayr yahay in kale bal hada ku day marka uu tuuro u soo saaro saddexdii qor mid kala baxbaa la oranayaa ka u soo baxu eegaya hadii safarku marka haduu soo baxo rabbi baa amrayna uu sadcaalayaa oo uu tegayaa hadii kalena waa uu iska joogayaa oo tegi maayo kaasna ilaahay waa reebay dhaqanka caynkaas oo kale ah rijsigu Allah ku sheegay subhanahu wa ta'ala waa qurun wax qurun oo xun oo ama sida culimada qaar kood ay tilmaameen waa nijaas ba waxa kani oo nijaas macnawi noqon kara waa qurun waana amal shaydaan ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ka fogaada waxa mudantiina liibaantaan likay tuflihu saa u liibaantaan ka fogaada oo maxaa shaydaan amalkii loogu sheegay محوس الشيطان عمل كي أيهي إلهي بس يورم وحيري إنما يريد الشيطان شيطان وحو دونيا هدي عاد خمرك أي خمارك أي أسنامك أي فالك أي قرنك عاد كش قيستان وكل قنتان شيطان وحو دونيا أن يوقع بينكم العداوة إنه دحدينا علاط لقوه وازدشان والبقضاء يمحن كرا اسنا عيب إنه دحدينا لقوه أي شيطان كدونيا في الخمر والميسر أي في سبب الخمر والميسر خمر كسبب تيسا إيو خمار كسبب تيسا إساس دونيا صدكم عن ذكر الله إينو ديسك كين هرتاغو الله حسكي سبحانه وتعالى وعن الصلاة هي صلاة دبا فهل أنتم منتهون متهن كويدين كتشوغي با إله إليه سبحانه وتعالى آية تاني سبب النزول بإلهيد سيدا الإمام الطبري وكتاب تفسير كوكياني الإمام حاكمنا وكان لفتيسو الإمام البيهقينا يسجل لفتيسو وصوص هاري شيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله كتاب كيسا الصحيح المسند من أسباب النزول وكغاها الله قل سنة وكوكياني وحيا هايد بالا سببت يكون تميد laba qabiil oo ansaar kamid ah oo qabaa'ishii ansaareed kamid ah ayaa dad jecel oo walaalo isku wacan ahaa intaan khamrada la xarimin oo tahriimkii khamrada aanu iman ayaa khamra ayay cabeen markay khamradii cabeen ayay wax isku dhufdhufteen nabar rays gaarsiiyeen iyagoo sakhraansan dad yow kamid ah labadii qabiil dabeetana waxba isgaargaarsiiyeen markii ay miirsadeen oo khamrigii cabidiisii ka soo miiraabeen ayaa la wareystay nabaradii ku yaalay markaasaa wuxuu midba yiraahdaan nabarkan walaalkay bay igu dhufto hebela nabarkan walaalkay bay igu dhufto hebela in dad walaalo isku wacan bay ahaayeen de khamrigii markii ay cabeen oo miirkoodii doorsoomay waxa xubnahooda ka dhacaya dareen badan uma laha markaasa Allah subhanahu wa ta'ala wax qalbigooda xumaan oo isugu jirtana aanay jirin ayuu Allah subhanahu wa ta'ala marka aayadatan uu soo dajiyay ka waramay innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun buli Allah subhanahu wa ta'ala marka waxa la xiriiriyay khamrigii asnaamtii baa la xiriiriyay asnaamtuna wixii jaahiliyadu ay caabudi jireen weeye khamrigu maraaxil buu soo maray kala duwan waxa la yiraahdaa culimada tafsiir say sheegaan
iyo muslimiinta fuqahadooduba ilaa taqriiban 4 marxaladood buu soo maray baa la yiraahdaa. marxalad wuxuu ahaa marxalad mubaax ah oo iska bannaan yahay sida Allaba ka warramay wa min thamaraati an-nakhiili wal-a'naabi tattakhiduuna minhu sakaran wa rizqan hasana buu Alla yidhi subxaanahu wa tacaala. Alla wuxuu ka warramay subxaanahu wa tacaala geedka timirta ah midhihiisa waxyaabo ka mida iyo cinabka inay ka samaysan jireen sharaab ay ku sakhraamaan iyo waxay dee quutaan oo arsaaq ah oo risqooda ay cunaan oo fawaakihdaas iyo timirta iyo cinabka inay ka samaysan jireen. marxaladaasi marka waxay ahayd marxalad ay marka uu ku siman yahay risqi iyo waxaan laga helayay ee laga cunayay meesha iyo maxaan ku yiraahdaa sukraankii iyo sakhraamidii. marka waxay ahayd ishaaro iyo tilmaamid ilaahay uu tilmaamayo maadaama mujtamacani xilliga quraanka soo digay joogay uu ahaa mujtamac khamriga cabidiisu ay dilootay oo muddo zamana isticmaalayay. waxa la doonayay marka in qalbiga lagala hadlo oo si ku qancid ah oo iimaan ah uu qofku waxa kan uga go'o ayaa qorshuhu ahaa. markaasaa rabbi subxaanahu wa tacaala ishaaru siiyey marka hore ishaaro ayaa ilaahay siinaya subxaanahu wa tacaala. marxaladda labaad waxay ahayd allah subxaanahu wa tacaala uu ka warramayo marxalad alle subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay in waqtiyada qaarkood inuu alle tilmaamay in waxani uu dhib iyo dheefba leeyahay laakiin dhibtiisu ay dheeftiisa ka badan tahay. yasaluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihima ithmun kabiir wamanaaficu linnaasi waithmuhumaa akbaru min nafcihimaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacala. waxay ku weydiinayaanoo kaa waraysanayaan khamrigii iyo khamaarkii waxaad tidhaahdaa qul fiihimaa ithmun kabiir dembi weyn baa ku sugan labada wamanaaficu linnaas iyo manaafic dadka baa ugu sugan. markay khamriga cabbaan bay wax sadaqaysan jireen wax la bixi jireen bay yidhaahdaan. marka taasna marxalad labaad bay ahaydoo ilaahay uu tilmaamay waxa kan ummaddu ku maman tahay dhibtiisa iyo dheeftiisu inay badan tahay dhibtiisu oo dheeftiisu ay yar tahay. marxaladda saddexaad waxay ahayd marxalad la doonayo dadku loo tilmaamay inay ka fogaadaan khamriga isticmaalkiisa xilliga cibaadaadka ay gudanayaan qaarkood sida salaada oo kale maalan inay ka fogaadaan oo alla waa tuula laa taqrabu الصلاة wa antum sukaara ha u dhowaanina salaada la imaatinkeeda iyo ku cibaadashadeeda tukashadeeda idinkoo dawaqsan oo sarkhaansan baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. oo marka waa la kala fogfogeynayaayo waxaa la doonayaa qofku marka way kala fogeyn jireen oo qofkii dee barqadii cabbaa salaada duhur baa soo gelayso isagoo dawaqsan oo sarkhaansan bay u imanaysaa salaadii. marka waxay samayn jireen maadaama 5tii salaadood ay isu dhadhow yihiin way iska dayn jireen maalintii inay cabbaanoo cishaa'iga iyo wixii ka dambeeya bay isticmaali jireen. marxaladaasna waxay ahayd marxaladii saddexaad. marxaladan afaraadna waa marxaladatan alle subxaanahu wa tacaala uu ka warramay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalazlaamu rijsun min camali الshayطaani fاjtanibuuhu lacallakum tuflixuun. marxaladii u dambaysay ee lagu xarimay ayay ahayd. fi saxiix albukhaari waxaa ku sugan xadiidka alimaam albukhaari uu soo saaray min xadiidi anas ibnu malik radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu leeyahay kaana lanaa khamrun hayra fadiikikum khamr aanu lahaynoo dee noocan khamriga ka midaad cabtaan aan ahayn wa innii laqaa'imun asqi abaa talxa anigu waxaan ahaa mid taaganoo waxaan khamriga u shushubayey abu talxa iyo islaantii dee hooyadii ninkii qabay ahaa saxaabigii qiimaha badnaa zayd ibnu sahl alansaari ayaan u shushubayey oo markaa aqalka jooga hebel iyo hebel iyo hebel. nin baa noo yimid markaasaa ninkii wuxuu yidhi war ma ogtihiin in khamrigii la xarimay warkaasi midin soo gaadhay. markaasay yidhaahdeen may khamrigii la xarimiyey. markaasaa abu talxa wuxuu yidhi ahriq haadihi alqilaal jalxadahan iyo cashuumadan iyo bahalladan fustooyinka u ega waaweyn ee khamrigu ka buuxo qub ayuu ku yidhi qub waxa kan. markaasaa wuxuu leeyahay anas ibnu malik radi allahu tacaala canhu markaasaa waxaanu samaynay waanu qubnayoo cidiba isma waraysan. magaaladii madiina waxa ay noqotay sida inuu roob helay oo kale dariiqiyadeedii khamri baa saa u rogmanaya oo maxaanku idhaahdaa
khamrigii markii la xarimay saa loo sameeyey. khamrigu marka walaalayaal khatarta caynkaasa ayuu maxaan ku idhaahdaa ilaahay uga warbixiyey si iimaan ahna qofka waa loogu qanciyey inuu waxa kan iimaan ahaan waxaan u qaato inay xaaraam tahay oo qofku uu ka fogaado qalbigiisa uu ka gooyo. runtii waxaan yara xusuustaa nin ka mida madaxdan Mareykanka soo martay dhawaan ayaa wuxuu aad ugu fardiyay wadanka in khamriga cabistiisa qarniga hadda tegay aad ugu xarimo oo yani aad uga mamnuuco. dadaal fara badan buu sameeyey, hanti aad u fara badan baa ku baxday, wuu taag waayey. markaasaa intuu kongareeska Mareykanka shiriyay wuxuu ku yidhi in carabeedoo carab ka soo baxay oo muslimiinta nabigoodii ah Maxamed la oran jiray buu yidhi soo halka u dhigay isagu ayaa ummadda wuxuu kaga celiyay bahalkii fahal antum muntahuun kalmad kaliya war ma ka joogsanaysa markaas ka joogsadeen annaguna intaasoo hanti aanu ku bixinay intaasoo maala intaasaanu xidhnay intaasaanu samaynay waa u taag weynay sida doontaan ka yeelay iminka buu yidhi. marka micnaheedu waxa weeye qofku waxa kan muharramaadka sidiisaba diiniyan iyo iimaan ahaan qofku markuu uga qanco oo qalbigiisa uga soo go'do ayuu qofku ka tagi karaa. marka afarta marxaladood aan ka soo sheekaynay oo maraaxishii uu soo maray rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu calayhi axaadiis aad u badan ayuu kaga waramay salawaatullaahi wasalaamu ibnu kathiir oo kale tafsiirkiisa baab dhan buuba keenaya oo ku ururinayo akthar intii ku timid axaadiista khamriga badankooda uu halkaa ku keenayo. مثلا رسولك صلوات الله وسلامه عليه حديث قال الإمام ابن حبان وصوصار من حديث ابن عباس وصحيح لغيره صحيح ترغيب وترهيب كان خصوصا رسولك عليه صلوات الله وسلامه عليه من لقي الله قفك إلهي لكلمة وهو مدمن خمر إساقو خمر يعب وخمر عبدي دائمي وانكتوبت كينين وسدو خمر يعبوها كل انتا لقيه كعابد وثن إلهي بو لكل ما يا إساقو لمد كصنم كعابده كصنم كعابده مشرق إساقو لمد حمانتا أيا لكل ما يا وحسنا لولي هنا وحمانتا وخمرقاني حيهي إيو قاب كيسا إيو وحن حمانتي سالوغة شيدا حديث كالوحوها اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر والخمرق كفوغادا خمرق شر أو دن فريه سوى من النبي عليه الصلاة والسلام عليه. الإمام حاكم باصوصاري من حديث ابن عباس وهي درسنا حلقة كوات انت سامانتك وصورنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.